علي؟ من ظننت؟ محمد. أين محمد؟ أين محمد؟ أين محمد؟ ما أدري، قد خرج. السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada meel walba dunida caladeed ka joogtaan mar waliba baadilka iyo xaqu waligood wada noolaasho wax la yiraahdo ma aysan gelin ama baadilka ayaa adkaan jiray ilaa xilli laga gaarayo ama mar walba sida caadadu ay tahay xaqa ayaa gacan sareeyo oo mar walba isaga ayaa sareynay hadaba wada suubanaheeni calayhi salaatu wasalaam in badan ayaa isku dayeen cadowgiisa inay nolosha dhaafiyaan si aanu u gudanin dacwada ilaahiga ah ee u taagaya hadaba wada maanta waxaan rabaa inaan kaaga sheekeeyo inta jeer ee suubanaheenu ay cadowgiisa isku dayeen inay dilaan sikadiisa oo qeyla ah oo ikhtiyaal ay ku sameeyaan amaba sidoo iska jireynin si khiyaano leh ay ku dilaan dabada wada aad bay u fara badan tahay inta jeer ee isku dayeen cadowgiisu in ay maartay suubanaheena dilaan laakiin waxaan rabaa inaan dhowr qodob kugu soo koobo dhowr muxaawalana aan ku sheego inta jeer ee isku dayeen cadowga inay dilaan suubanaheena naxariisiin nabadgelyo korkiisa ha noqoto waxaad ka warqabtaan suubanuhu markii uu hijroonayay intaanu hijroonin in ay isku waafaqeen nimankii Quraysh la oranayay waxa ay fadhiisteen meeshii la oran jiray Daaru Nadwa golahoodii xaruntii baarlamaanka oo ay ku shiri jireen oo maartay halkaas ay ra'yiga ku aruuri jireen waxa laga yeelayo la dagaalanka argagixisada waxa uu yaqaanaan ayagu oo ah muslimiinta dabada wada Quraysh waxa ay isugu timid meeshii la oran jiray Daaru Nadwa halkaas ayaa la isugu yimid waxana ay yiraahdeen ugu dambeyn Maxamed iyo anagu waynu isku daalnay waxa qasab ah in maanta go'aankii u dambeeyay aynu ka gaarno ninka la yiraahdo Maxamed waxaynu ku sameeynaa miyaanu xabisnaho xabsi baan dalaqsinaa waligiib halka ayuu noogu jirayaa kamana soo baxayo ilaa uu halka ku geeriyoodo mase waanu bixinaa wadankeennaba waynu ka ceyrinaa oo wadanka ayaanu ka saaraa wax maanta loo yaqaano mutaarada ama ruux in baasaboorka laga laabto dalashada laga laabto kadibna wadanka laga saaro oo halka ayo dibadda loo diro oo miyaanu ceyrinaa sida miyaa wadanka kaga saarnaa waa sida ilaahay kaga warramay suuratu anfal wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuru Allahu wallahu khayrul maakirin waa ka ilaahay oranaya kaga warramay xaaladda ayada ugu dambeyn ninkii Abu Jahl oranayay inta ra'yiga lees dhaafsanayay mid oranayay aan bixinno mid kale oranayay aynu xabsi gelino mid kale aynu wax kale sheegay ninka Abu Jahl inta uu aamusnaa waana uu fikiriyay ninkani wuxuu ahay nin shaydaan ayuu ahaa oo waana fircoon hadii umma muddatan fircoonkeedii weeye ninkaas Abu Jahl hadalkii markay ay dhameeyeen odayaashii ayaa waxa uu yiri wallahi niman yahow ilaa iyo hadda wax lagu qanco ma haysan waxna ay ku yiraahdeen bal xakam baa la oranayay garta aabaheed ayaa la dhihi jiray musiiba oo marka la garamayo aan garta lagu gaarin ayuu ahaa waxa soo aqoonay xikmadana waxa uu adeegsaday la dagaalanka islaamka mar haddaad ilaahay rasuulkiisa la dagaalantaan xikmadu waxba ku gali mayso odayaal badan maanta balaayiya cabqariye isku sheegayo cabqarinimadaas aan diinta u isticmaalin waxba tari mayso aqoontaada iyo cabqarinimadaada waxba tari mayso haddaan u khidmaynaynin kitaabka Allah iyo waxa weeye diinta hadaba wada ninkii Abu Jahl waxa uu yiri ilaa ay hadda wax rag ku qanco maydaan keenin waxana ay ku yiraahdeen Abu Xakamow maxaad aragtaa adigu dadna waxa uu yiraahdo waxaan arkaa ninka Maxamed waynu isku daalnay in xabsi la geliyo ma arko in la cayriyo ma arko anigu waxaan arkaa buu yiri ninka asaga ah inaan 40 wiil oo dhalinyaro ah oo xoog badan aynu iska soo saarno qabaa'ilka Quraysh aynu ka soo saarno aanu isku keenno mid walba aan u dhiibno seef xoog badan oo wax kala jarayso af badan dadna 40 koodu mar qora ay Maxamed ku kulmiyaan habeenkii markuu gurigiisa u jeefto ayaanu ku hareereynayna markuu subaxdii soo bax maagana mar qora ayaa 40 kan wiil ay seefta ku kulminayaan si aanay reer Bani Haashim aanay u awoodin in la dagaalamaan markii ay dilaan anagu horta waan ka istiraexaynaa markuu subaxdii u soo kaco ayaanu dilayna waanu ka istiraexaynaa kadibna reer Bani Haashim ninka ugu aqliga badan wuxuu oranayaa war ninkan intuu noolaa waan difaacnay oo waanu ku rafaadnay difaaciisa haddana si khiyaano ah ayaa lagu dilay oo anagu ma dayacin si khiyaano ah ayaa lagu dilay mana awoodayaan reer Bani Haashim markaa kadib inay la dagaalamaan qabaa'ilka tirada badan ee Quraysh oo waxay oranayaan waxaan ku rafaadnay difaaciisii anagoo iska jireynin ayaana si khiyaano lagu dilay markii uu dhintay kadibna inaynaan ku dhamaanin ayaa haboon oo diya qaadano markay diyada dalbadaanna kadib aynu diyada siino ra'yiga asaga ayaa u soo jeediyay ninkii gaalka ay weynaa la oranayay Abu Jahl nimanka Quraysh iyo odayaashoodin aad bay ula dhaceen waxay yiraahdeen daaka ra'yiga saxda ah waa kaas ninka aynu dilno aynu ka takhalusno habeenkii nabiga oo guriga jooga ayaa ay isku war ka qabteen xamladiina waxa hogaaminaya ninka la yiraahdo Abu Jahl ayaa hogaaminaya 40kii wiil afka ayuu u soo duubay gurigiisa banaha ay isku hareereen isku war baa laga qabtay banaha markaa waxa la joogo Cali baa la joogo guriga ku jira kadibna Cali ayaa waxa uu ku yiri markii arintii uu arkay Cali ayaa waxa uu ku yiri Caliyow sariirteeda jiifo go'aygana hugo waxba kuma yeelayaan nimankan waxba kuma yeelayaan markay ku arkaan waxba ku yeeli maayaan dadna rasuulku carra ayuu qaatay indhaha ayuu kaga shabiyay indhaha ayaa carradii ka wada gashay 40 koodiiba Ilaahay baa u qaybiyay oo Ilaahay baa indhaha ka gashay mid kasta rasuulkuna waa carrada u gamay dadna ayar ayagoo taagan ayuu soo dhaxmaray ayagoon arkayn sida ayuu kaga badbaaday rasuulku sallallahu alayhi wasallam isku daygii la rabay in nolosha lagu dhaafiyo dacwadiisana halka laga takhaluso hadaba daawade taa waxa ka sii horeysay in Quraysh ay keeneen markii ay isku daaleen
ayaga iyo ninka nabiga adeerkiisa hay difaacay Abu Talib oo si walbaba ay ka qoosteen Abu Talib inuu u soo gacan galiyo wiilkiisa Muhammad ayaa waxa ay sameeyeen nin la yiraahdo Ammar ibn al-Walid oo Walid ibn Mughira u dhalay oo aad u qurux badnaa oo ahaa nin dhalinyaro oo markaas soo kacay aad u qurux badan laba lafooda wiil Quraysh oo la midiba aanu jirin ayay soo wadeen waxaan u keeneen Abu Talib waxay Abu Talib oo saaki go'aanka ugu dambeeyay ayaan wadnaa oo muxuu yahay wiilkan ayaan ku siinayna ninka Ammar ibn al-Walid wad garanaysaan nin la midi ma jiro Qurayshna kuma jiro Ammaran ku siinayna wiil ahaan u qaado wiil ka dhigo asaga wiil ku noqdo Muhammadna nagu soo wareej waan dilayna waana kasbina ku siinayna nin iyo nin dadna Abu Talib wuxuu yiri waxa xumaaday buu yiri waxaad igala hadlaysaan ma wiilkiina ayaad iseenaysaan si aan u barbaariyo oo wax u siiyo oo u dhirjiyo oo aan u kolkooliyo anakayga ayaan idin siinaya miya si aad u dishaan bi sama tasumuunani waxaad igala hadlaysaan oo igula baayactamaysaan ayaa xumaaday igala taga warka asaga wallahi inaanan yeelinin buu yiri arinta ayada heedna Abu Talib waa ku gacan saaray hadaba daawade muxaawalaadkii la rabay suubanaha in lagu qaarijiyo ma aysan istaagin halkaana kuma dhamaanin ninkii la oran jiray Umar ibn Wahab ad garanaysaan dibna ka islaami doona saxaabiga noqon doono ayaa asna wuxuu isku dagay suubanaha inuu dilo ayuu isku dayay inuu dilo suubanaha ayuu ninkaasi isku dayay asaga iyo Safwan ibn Umayya ayaa dagaalkii Badr kadib waxa ay fadhiisteen Kacbada banaankeeda dadna waxay ka sheekaysteen dadkii Badr lagaga dhameeyay ee halkaasi looga halaagay Umar ibn Wahab waxa uu yiri wallahi hadii aan deyn leegu lahaan lahayn aroorteyduna agoon aysan noqon lahayn kadibna wax siiya aysan wayn lahayn Muhammad baan aadi lahaa waana soo dili lahaa kadibna aniga halka lagu dilo yaani hadaan deyn leegu lahaan lahayn oo deyn ba maanta lagu leeyahay cid gudaysaana ma jirto aroorteydina wax aniga iga dambeynaya ma jirto taas baan ka baqayaa sida daraadid haday arintaas meel la saari lahaa ninka Muhammad ana kaga filaa lahaa Safwan ibn Umayya waa labadooda qurab bin aadan kale la joogahay ma jiro Safwan ibn Umayya ayaa wuxuu yiri aroortaada iyo deyntaba intaba ana saaraysa deyntaadana ana gudaya aroortaadana intay nool yihiin waa aroorteydu kala ana biilay arinta ayada fuliniyo Safwan ibn Umayya waad garanaysaan aabihi waxa lagu dilay dagaalkii Badr dadka aad u careysan ayuu ku jira sida daradeed Umar ibn Wahab wuxuu ku yiri aniga ayaa damaanad qaadaya aroortaada intay nool yihiin ana damaanad qaadaya deynta lagu leeyahay ana gudaya hawshaana fuli waa la isballansaday waa labadooda qura waa qof kale la joogaa ma jiro Kacbada ayaga unba fadhiyo ayaga unba isballansaday arintaas ay ku ballameen ninka la dhahayo Umar ibn Wahab safeties ayaa u qaatay waana u dhaqaaqay dabada waday waxa uu tagay Madiino deedna Umar ayaa arkay ayaa Umar ayaa dhaha saaray deedna wuxuu yiri waa cadowga Ilaahay waa ninka maalintii Badr na jaasuusay ee soo tira koobay ee Quraysh warkeena u geeyay ninkan safeties ayaana u wata sharboona leeymi wax kala lama iman deedna rasuulka ayaa ku yiri Umar oo soo daanin waa la soo daayay nabiga ayaa soo hor istaagay ninkii la oranayo Umar ibn Wahab deedna rasuulka ayaa la hadlo wuxuu yiri Umar maxaa ku keenay deedna wuxuu yiri Muhammad waxaan u imiday maxbuus ad haysataan maalintii Badr ad qabsateen inaan idin kala hadlo ayaan u imid kadibna rasuulku wuxuu ku yiri oo seeftan aad sidatana maxay tahay maxaad u wadataa seef deedna Umar wuxuu yiri waa u xeeladeystayo seef miya alla maxay seef gashaaniyo oo mayay naga tartay maalintii Badr seef miyayna anfacday oo wax noo tartay maalintii Badr hadii seef wax tarayso maalintii Badr ayay wax noo tar lahayd marka anigu seeftan waa iska sitaa mooyee maxbuuska aad haysato Muhammadow inaan kala hadlo ayaan u imid deedna rasuulka ayaa wuxuu ku yiri maye maadun iimaan arrin kale ayaad u timid iga dhigaysay waxaad u timid ana ku sheegay adiga iyo Safwan ibn Umayya ayaa Kacbada banaankeeda fadhiistay deedna waad wada hadasheen waxaadna tiri haddii aysan jiri lahayn in diin laygu leeyahay asxaabu ciyaalna aan ahayo caruur aanan ka tegaynin cid wax siinaysaana aanan jirin Muhammad baan soo dili lahaa tiri kadibna Safwan ibn Umayya ayaa ku ballan qaaday inuu caruurtii wax ku siinayo deentana ka bixinayo sidaas ayaan u soo baxday inaad idisho ayaadna halkan u timid ilaahayna arinta kuma suurta gelinayo Umar waagi baa ku bariyay waagi ayaa ku bariyay arrin cidina aysan ogeyn ilaahay mooyee ayaa laga waram deedna waxa uu gartay Muhammad inuu rasuul yahay shakhsi caadi aanu ahayn halka ayaanu ku islaamay ashhaatigana ayuu halaalay ugu dhawaaqay ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasuulullah ayuu halka ku yiri sida ayaanu ku islaamay saxaabigaad garanaysaan la yiraahdo Umar ibn Wahab hadaba dilkii suubanaha ayaa u yimiday halkii uu dili lahaana waa uu islaamay markii uu arkay xaqiiqadii hadaba inta miyay ku istaagtay isku daygii la doonayay rasuulka in la dilo waa may daawada in mar kale ayaa la isku dayayaa in suubanaha la dilo markii suubanahu uu hijrooday ee uu ka badbaaday dilkii aan ku soo sheegay ee Abu Jahl oo rabay inuu dilo markii asaga iyo Abu Bakar markii ay baxeen oo hijradii ay aadeen oo ay dhaqaaqeen oo Maka ay ka baxeen Quraysh ay ka waysay gurigiisii ayaa Quraysh waxa ay dul saartay suubanaha madaxiisa 100 geela qofkii nolol iyo geeriba ku keeno in 100 geela la siinayo ayay u dhaxnaadiyeen qabaa'ilkii oo dhan iyo Quraysh oo dhan wareegta ayaa la soo saaray la leeyahay Muhammad iyo Abu Bakar ninkii keeno 100 geela ayaa uu leeyahay nin la yiraahdo Suraaqa ibn Malik oo ahaa dadkan ku dheereeya raadraaca marka loo baahdo in wax la raadiyo dad waxa jira ku takhasusay raadka iyo in la raadiyo ruuxa halkan maray meesha qof baa maray masal lama marin dad ku takhasusay ayaa jira ninka Suraaqa la yiraahdo
dadka ayuu kamid ahaa deedna markii uu maqlay in 100 geela maxamed la dul saaray faraskiisa ayaa uu qaatay waana uu wareegay ilaa uu helay suubanaha iyo abubakar raadkoodii uu helay raadkoodii ayaa uu faraska ku raacdeeyay waana uu ka daba tagay markii uu ka daba tagay oo raba inuu dilo ayaa faraskiisii ayaa dhulka ku dhacday mar qora dhulka ayuu dhulka yaala ayuu isar haddana faraskii ayuu ka digay waana uu koray haddana dib buu u soo canaantay waa uu soo dhaqaajiyay haddana faraskii ayaa weeraxay oo uu iska tuuray ninkii la oranayay suraaqa uu iska tuuray dhulka ayuuna ku dhacay faraskii iyo macal suraaqi mar saddexaad ayaa uu soo koray haddana uu soo canaantay faraskii haddana faraskii mar qora ayuu haddana kor u booday suraaqa dhulka ayuu ku dhacay waxaana uu ogaaday suraaqa inaanu ninkani waxba ka qaadi karin deedna waa u dhawaaqay waxa uu yiri war wallahi wax shar xaggayga idinkaga ma imaanayeen iisu aan wada hadalnay deedna rasuulka iyo abubakar ayaa sugay waana uu ka daba tagay waa uu la hadlay waxaana uu ku yiri waxaan ogaaday buu yiri inaan mamnuuc atihiin inaan waxba idinku samayn karin ayaan ogaaday nimayo qurayshina madaxiina waxa ay saartay 100 geela cidi nolol idinku keento maxamedow waxaana ogaaday inaan waxba lagu yeeli karin inaad guuleysanaysana halkan ayaan ka fahmay aniyow markaad guuleysato waxay ballan qaad deedna suubanu waxa uu ku yiri suraaqow ka waran hadaad libisato biladihi Kisra ibn Hurmus bal ka war Kisra ibn Hurmus waa boqortooyada labaad ee adduunka ka dhisan maalinta ninka hogaaminayo way madaxweynaha hogaaminayo boqorka hogaaminayo biladaha uu ku libisto ka waran bal hadaad libisato markaas uu ma Kisra ibn Hurmus ma Kisraagi ibn Hurmus haye furs xukumay markaas la weeri ha kaas ayaad gashan doontaa طبعا arintaasina waa ay dhacday oo xilligii Umar ibn Khattab markii muslimiintu ay afka ciid u dareen boqortooyadii reer Furs ayaa waxa la keenay biladihii uu ku libisan jiray ninkii la oranayay Kisra markii muslimiintu ay qabsadeen magaaladii caasimadda oo ahayd Madain ayaa la keenay deedna Umar waxa uu yeeray Suraaqa waxaana la libiso Suraaqana halka ayuu ku libistay deedna waa ku socday ilaa lagu qosqoslay kadibna Umar ayaa ku yiri soo siib deedna wuxuu yiri maxaa dhacay waa ana iska leh rasuulku wuxuu ku yiri waad libisan doontaa miyuu ku yiri adiga ayaa iska loo qaadanaya soo siib baa Suraaqana arintaayad waa ay u suurta gashay hadaba daawada Suraaqa Abubakarna wuxuu ku yiri iyo rasuulku waxay ku yiraahdeen Suraaqa markaad laabato cid kastoo raadkeena hayso hadaad aragto naga cili anuu ku yiri ana idinka cilinayo markii uu laabtana waxa ka hor yimid dad raadinaya rasuulka kadibna wuxuu ku yiri waad garanaysaan Suraaqa ayaan hay raadka cidiga dheereysana ma jirto jihadan ana ka imid waxba ma jiraan iska laabto si ayaana iskaga laabteen hadaba daawada halka kuma istaagin isku dayga la doonayay suubanaha in lagu dilo waxaad ka warqabtaan magaalada Madiina waxa deganaa qabaa'il dhowra oo yahuuda maalmaha kamida ayaa suubanu wuxuu aaday qabiilka la yiraahdo Banu Nadiir asagoo doonaya inay la gudaan diyo laga rabay suubanaha sallallahu alayhi wasallam oo nin saxaabada kamida ayaa waxa uu dilay qabiil nabiga kula jiray ahdi iyo ballan oo heshiis u ka dhaxeeyay deedna rasuulku waxa uu yiri diyadii ayaan bixinaya diyadii marka maadaama magaalada Madiina saxiifad oo qoray nabigu markii uu soo galayay warqad la wada qoray diyadii la isla bixiyo magaalada la wada difaacdo hal ummad la ahaado sida daraadeed waxa uu aaday reer Bani Nadiir waxaana ugu tagay in diyada ay la bixiyaan deedna waa ay soo dhaweeyeen waxay yiraahdeen maxamedow waa diyadii waanu kula bixinaynaa soo dhawow nabiga meel bay fadhiisiyeen deedna waxay ku yiraahdeen halkan nagu sug xoolihii baan ku soo aruurinaynaa in yar bar halkan nagu siiso guri agtiisa ayaa ay fadhiisiyeen yahuudi markay isku laabteen waxay yiraahdeen war maanta fursadii cimriga ayaad haysataan ninkii Maxamed aha markaas suubanaha waxa la socdo Abubakar iyo Umar iyo Cali ninkii Maxamed oo aan dad badan la soconin baa maanta guriyeena yimid waa fursadii cimriga war ninkan maanta haysataan ka takhalusa mid leeyahay Amr ibn Jahash ayaa waxa uu yiri aniga guriga uu ku santeecsan yahay oo agtiisa fadhiyo gadaal ka soo korayo dhagax weyn baan qaadaya dusha ayaana kaga soo deynaya bal ogow dhagarta inta laag ay la maleegayaan oo ay rabaan inay ku dilaan suubanahan laakiin mid ayaga kamid ayaa nahiyo wuxuu ku yiri war ninkan waad garanaysaa reer Bani Nadiir inna haystarinina ninkan waad ogtihiin inuu rasuul yahay waad ogtihiin inuu adinkeeda ka dhalay waayo oo carab noqday ayaad u xasideen mooy inuu rasuul yahay waad ogtihiin hadaba daawad ogow waa ki ilaahay quraankiisa ku yiri alladina aataynahumul kitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaahum kuwa kitaabka aanu siino nasaarada iyo yahuud ahi way garanayaan nabi Muhammad sida ay u garanayaan caruurtooda man ruux baa jira canugiisa garan waynay canugooda sida ay u yaqaanaan mid ayaga kamid sida canugiisa u yaqaano ayay suubanaan u yaqaaneen marka wuxuu ku yiri war waad garanaysaa ninkan inuu rasuul yahay hadaad arrinka isku daydaana waa loo sheegaya waxay baa u imanaya arrintiin way fashilmaysaa ballankii aad ku jirteen magaalada Madiina aad ku joogteen sida ayuu ku burburaya war yahuuday wiligeeba warkayga diida laakiin maanta warkayga yeela aynayo ninka warka arrinta ayada ha isku sameeynina dadna warkii ma ayna yeelin Amr ibn Jahash mid la yiraahdo ayaa yiri warkaaga kuma jirno dhagax baan qaadanaya dushaana kaga deynaya marka uu soo dhaqaaqo guriga dalka soo korayo ayaa Jibriil baa yimid suubanaha ayaa arrinka loo sheegay mar qora ayuu saxaabadii kala soo la hadlan rasuulku ayuu istaagay agta ayuuna furay wuu iska baxay sidii nin soo xaaje gudanayo kale ayuu mar qora dhaqaaqay Madiina ayaana u galay ilaa saxaabadii gadaal ay ka soo kaceen nabiga markay waayeen ay raadin u galeen kadibna ay soo dhaqaaqeen oo Madiina xageeda ay soo aadeen ilaa uu ka hor yimid nin Madiina ka yimid markii ay weydiiyeen uu u sheegay in uu ku arkay asoo sii galaya magaalada Madiina hadaba daawada inta kaliya maanay ku ekaanin isku daygii la doonayay suubanaha in lagu dilo mar kale islaan kale oo yahuudiyada ayaa ayana nabiga ayay sumaysay oo dagaalkii Khaybar markii uu dhamaaday ayaa islaan yahuudi hilibka markii la suuban waxa uu jeclaa inuu cuno garab deedna maadaama ay ogeed islaantan inuu garabka jecel yahay islaan yahuudiyada ayaa waxay u soo sameysay oo Zaynab bint Harith la yiraahdo garab sumaysan ayay rasuulka u soo dhiibtay rasuulka markii loo keenay saxaabada dhowr ayaa la joogtay saxaabi la yiraahdo Bishr ayaa kamid ahaa saxaabadiina waa loo keenay nabigana
waa la siiyey garabkii ayaa la siiyey deedna saxaabadii waa ay cuneen khaasatan saxaabiga la yiraahdo Bishr ayaa cunay nabiguna markii uu goostay ayaa garabkii baa dhawaaq ogow hadda garabkii baa hadlay garabkii ayaa yiri nabigu la hadlay wuxuu ku yiri waan sumaysanahay hay cunin deedna rasuulku waa u joojiyay saxaabadii wuxuu ku yiri joojiya raashinku waa sumaysan yahay islaantii baa la soo qabtay maxaad ka wada baa la yiri inay yahay maxaad ii sumaysay buu ku yiri suubanuhu deedna waxay tiri waxaan ogaabay tiri waa aad bay yuhuudu sideeda banaanba waa dad xeelad badan islaantii waxay tiri markii la yiri war maxaad saatan u yeeshay waxay tiri waxaan ogaabay tiri haddaad nabi tahay inuusan garabkani waxba ku yeelaynin oo waxyi lagu sheegaya waxbana kuma yeelayo iska deynaysa waana sida hadda dhacday haddaad nabi ahayna inaan ka istareexno ayaan doonay bit oo ka takhallus deedna rasuulku waxba yeelin oo iska day rasuulku loo miyaadan dilaynin baa la yiri ma yiri oo iska day laakiin saxaabigii kale Bishr ayaa u geeriyooday raashinkii uu cunay sida daraadeed baa nabigu yiri hala keen islaantii saxaabigii ayaana loogu khisaasay oo sida ayaa islaantii lagu dilay dawada wada inta kuma istaagin dilka la rabay nabiga sallallahu alayhi wasallam la dilo dagaalkii Tabuk markii uu suubanu ka soo laabtay oo magaalada Madiina u laabtay ayaa 12 munaafiq waxay isku dhaarsadeen nabiga inay dilaan deedna intii la soo socdo dhan nabiga agaarkiisa ayaa ay socdeen ayagoo raadinaya fursadii ay ku dili lahaayeen wax ciidanku soo socdaba meel buura oo taaga oo dheer ayaa uu nabiga sallallahu alayhi wasallam ku soo aaday deedna waxa ay dooneen inay hasha nabiga ay ku eriyaan meesha ayada ah oo qowga ah si ay uga faniinto gibigaas nabiga sallallahu alayhi wasallam sida ugu dhinto laakiin waa loo waxyooday oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay ayaa u waxyooday arintiina waa uu ka laabtay Amaar ibn Yaasir iyo Xudayfa ibn Yamaan ayaa la socday oo hashiisa hogaaminayay deedna dib ayay u celiyeen gadaal celiya ayay hasha gadaal ayaana u celiyeen munaafiqiintiina halkaan ayayna ku fashilmeen ayagoo doonaya rasuulka inay dilaan rasuulkuna magacyadooda waxa uu qoray ninka la yiraahdo Xudayfa ibn Yamaan markay saxaabada qaar ay ku yiraahdeen rasuulka Allah miyaadan dilaynin nimanka munaafiqiinta wuxuu ku yiri maya ma doonayeen dadku ku sheekaystaan inuu Muhammad dilayo asxaabtiisa nabigu aad buu u naxariis badnaa laakiin cadowgiisu dad aad u dhib badan ayay ahaayeen aad bay u badan tahay mana soo koobi karayno daawada inta jeer ay isku dayaan cadowgiisu suubanaha in ay khaarijiyaan oo ay dilaan Abu Jahl baad ka warqabtaan soo kacbada ku dukanayo nabigu sallallahu alayhi wasallam inuu isku dayay inuu dilo laakiin nabigu sujuudsan salaad ku jira markii uu soo aaday ayaa god naara ayaa hortiisa ka qodmay Abu Jahl deedna dibdib ayaa u cararay oo gadaal ayaa u cararay dalkii la oran jiray Uqbah ibn Abi Mu'ayth ayaa asna maalmaha kamida nabiga ayuu maridiisa intuu dhunta ugu duubay ayuu rabay inuu ku ceejiyo oo ku dilo ilaa Abu Bakar uu ka fujiyay labada wada aad bay u far badan tahay inta jeer ee la isku dayay in laga takhaluso oo la dilo oo la ikhtiyaaro suubanaheena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haato laakiin ilaahay ayaa meel u watay ilaahay ayaa doonayay inuu risaaladiisi ku khatimo waana ku khatimay cadowgiisina waxba ma yeelin ayaga un baa naarta ku jira asaguna jannada ayuu ku jira fariintiisina waa u gutay annagana Allah naga dhigo kuwa xaqii iyo risaaladii oo adduunka la yimiday qaata ku dhaqma kuna geeriyooda maanta muuqaalkan inta ayuu ku egyahay halka ayaa ku soo gabagabeynayna haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe saar like iyo share ku qabo aad baan kugu mahadnaqayaa assalamu calaykum wa rahmatullahi